asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo ka joogtiin dunida daafeeda magacaygu waa axmed faarax halkaa nagala socotiinna waa xamil high school saaxiibayaal kusoo dhawaada cashirkii labaad ee softwareka lagu magacaabo Adobe Audition haddaba cashirka labaad ee softwareka waxaanu ku baran doonaa qaabka uu u shaqeeyo softwareku iyo sidoo kale cilad ka mid a ciladaha inta badan qabsada dadka isticmaala softwareka lagu magacaabo Adobe Audition haddaba saaxiibayaal si aan u guda galno cashirka oo dhammaystiran u diyaar garow muuqaalka oo dhammaystiran hagaag saaxiibayaal ugu horreyn waxaynu soo kici doonaa softwarekii aynu hore uga soo hadalnay ee lagu magacaabi jiray Adobe Audition software marka horta sidaan kuuga soo baxo waxaan baran doonaa shaashadaha uu leeyahay softwareku iyo waxa ay noo qabtaan shaashadan ugu horreyda oo hadda taaganahay waxaa lagu magacaabaa canvas ama waxaa la yidhahdaa program monitor shaashadani waa shaashada wax kasta oo editgaraynaysid ee kaaga soo muuqa doonaa si lamida wax kastoo editgaraynaysid meesha aad ku editgarayn doontidna waa ayada gudaheeda haddaba tan marka waxaa la yidhahdaa canvas qaybtan waxaa la yidhahdaa ben project waa qaybtii aynu kusoo barnay softwareka hore ee premier pro oo laga soo gelinayay wax kasta oo lasoo gelinaya softwareka si loo edit garay haddaba saaxiibayaal haddii aad rabtid softwareka inaad wax kusoo dartid program ama aad rabtid waxyaabaha meesha kaaga muuqdo qayb ka mid a inaad qaridid waxaa kuu suurtagelinayso qaybtan la yidhaahdo window haddii hadda aan ku dhufto qaybtan la yidhaahdo files oo kale haddii aan ku dhufto waxaa ujeedaa halkan waxaa soo galay qaybta ben projectiga fileski ayaa soo galay haddii aad window tago aan files checkta saarana qaybta waxay noqon doontaa ben project oo waa meel u diyaarsan in hadhowti wax kasta oo aan soo gelina softwareka aan ka soo geliso hagaag haddaba saaxiibayaal markasta waxa aan aniga ku tusaa wax ka badan isticmaal si aad aqoon fiican ama takhasusi dheeri aad ugu yeelatid softwarekan maanta waxaan rabaa cilad inta badan qabsato dadka isticmaala softwarekan markii ay ku shubtaan kombyuutarka inaan halkan kugu tusiyo ciladaasi wax kale maaha waan xasuusanahay dad badan oo softwarekan yaqaano inay muuqaalkan daawo doonaan laakiinse waxay maagayaan marka softwareka lasoo degaanba horey uga shaqaysta laakiin softwarekan adoo ciladan iska xallin kuma shaqaysan karaysa ciladanna wax kale maaha ila fiiri meeshan haddii aan ku dhufto qaybtan recordingka halkan recordingka haddii aan ku dhufto loogu talagalay softwarekan in wax looga duubo haddaan ku dhufto qaybtan ugu horeydo wuxuu leeyahay horta waxaa la baxdaa file name muuqaalkan magac ula wuxuu leeyahay ani waxaa ula bixi doonaa lesson 2 maadaama uu yahay muuqaalkeygii labaad sidoo kale qaybtan symbol rate-ka waxay noo qabatay qaabka loo saxiyo ciladeedana muuqaal kale ayaan uga hadli doonaaye keliya hadda waxaan dhihi doonaa okay oo meeshan waxba kale kama bedeli doona saaxiibayaal marka okay iraada ani hadda waxaan rabaa inuu softwareka hore wax iga duubo ayaan rabay laakiinse waxaa ujeedaa meeshan waxaa lees soo saaray calaamad tacajub oo waxaa la yiraahday waxaa ku haysto problem ka haysto dhanka hardware audio hardware haddaba problemkan waa problemka inta badan ku yimaado softwarekan markay qof computer ku shubatana ay ku wareereen ciladan qaabka loo xaliyo ayaynu baran doonaa haddaba si aad ciladan u xalidid aad ayay u sahlan tahay qaybta close garay kadibna waxaad tagtaa halkaas ay ku qoran tahay edit markaad tagtid qaybtan ugu hooseeda ay ku qoran tahay performances ayaad ku dhufanaysaa kadibna halka ayaa waxaad ka raadinaysaa meel ay ku qoran tahay audio hardware halkaas ayaad ku dhufanaysaa kadibna qaybtan la yiraahdo difficulty output meesha ayaad soo furaysaa kadibna halka ayaa waxaad ka dooranaysaa microphone hadda waxay kuu tahay no input keliya microphone ayaad check saaraysaa kadibna waxaad dhihi doontaa yes markaad dhahdid okay ayaad leedahay bal haddaba mar kale aan recordingka bilaabo hagaag saaxiibayaal waxaa ujeediin hadda softwareka si nadiifa ayuu codkeyga u duubaa oo wax kasta oo hadda yidhaahdo si toos ayuu u duubaa ciladani waa cilad inta badan qabsato dadka isticmaala softwareka lagu magacaabo Adobe Audition marka ugu horeydo ay kombyuutarkooda ku shubtaan magaana ku shaqaystaan ciladan ayaa qabsato in badan ayay tuuraan soo install garayaan way tuurayaan way soo install garaynayaan maanta oo dhan ayagoo moodo cilad ka haysato marka koowaad ay la soo degayeen cilad kusoo biirta ayagoo moodo keliyana wax kale maaha inaad qaybtaas iska xirtid oo qaybtan microphoneka aad check soo saaratid ayaa lagaa rabaa insha allah muuqaalkan muuqaalada ka dambeeyana waxaynu uga hadli doonaa cilado kale oo waaweyn oo ku yimaada softwareka qaabka loo xaliyo iyo siyaabo badan oo loogu shaqaysto softwarekan haddii ay tahay markii ugu horreysay muuqaalku soo gaaro muuqaalka like saar sina share garee si asxaab badan ugu faa'iideystaan haddii ay jirto wax su'aale ee kaaga yimaada muuqaalkan iyo muuqaaladii ka horreeyana qaybta hoose ee commentiga inagula wadaag tani intaa gaari doona cashirka xigana waa dhammaantood oo dhammaanteed leh isma dhaafno